maanta ay taariikhdu tahay 29 bishii 7 2023 waxaa noo qabsoomay kulankii guddiga joogtada aqalka sare. waxaa shir gudoominayay gudoomiye Cabdi Xaanshe, waxaa goobjoog ahaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad. ajandaha kulanka wuxuu ahaa isku shaandhaynta iyo lagu sameeyay gudiyada golaha aqalka sare maadaama ay howlo badan hor yaalaan golaha. gudiyadana ay yihiin muhiim in hawshooda ay dardargeliyaan. marka waxaa lagu sameeyay isku shaandhayn si ay howlahooda si fiican ugu sii wataan ay u dardargeliyaan. ka tashiga arrimaha dib u eegista dastuurka in si wadajir ah looga shaqeeyo habraaca guddiga dastuurka ee uu soo jeediyay xogeyaha guddigaas si loo dardargeliyo howlaha dastuurka iyadoo oo labada gole ay muhiim u tahay wada shaqeyntaas. marka sidaa daraadeed xogeyaha guddigaas dib u eegista dastuurka wuxuu soo jeediyay in habraacyadaas si wadajir looga shaqeeyo haddii Allah awoodo la yiraahdo. waxaa warbixin hufan laga dhageystay gudoomiyaha guddiga xeer hoosaadka aqalka sare ayaa asaga oo warbixintiisa ay ku jirtay in ay wadaan labada guddi ee xeer hoosaadka golaha shacabka iyo aqalka sare siday uga shaqeyn lahaayeen in la helo xeer hoosaad midaysan oo lagu wada shaqeyn karo labada gole maadaama ay labada gole ay ka dhaxeeyaan howlo badan oo muhiim ah in laga wada shaqeeyo. haddana waa in ay caddahay waxa laga wada shaqeynayo uu yahay wax lagu heshiiyay oo xeer hoosaadkii ku qoran oo kala xadidaya golo walba